isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag Xuseen Cismaan Xasan Talaahi oo weheliyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag Gaashaanle Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayare ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen xarunta taliska booliiska ee gobolka Sanaag ku soo bandhigay gaadiid laga leeyahay maamul goboleedka Puntland oo si sharci darro ah uga dhuxulaysanaya deegaanada gobolka Sanaag. isuduwaha ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in hawlgalkan ay gaadiidka dhuxusha ku soo qabqabteen ay gacan buuxda ka heleen ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag isagoo fariin digniin culus xambaarsan oo u diray cid kasta oo ku hawlan jarista iyo xaalufinta deegaanka gobolka Sanaag. anigu waa isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga deegaanka ee gobolka Sanaag waxaan halkan aan ku soo bandhigayaa saxaafadda u soo bandhigayaa hawlgalaanu qabaanu ka hawlgalay gaarigan dabadayda taagan oo ah gaari ka dhuxulaysanayay dhuxul u soo doontay gobolada bariga ka yimi iyo gaalkacyo oo aanu ka soo qabanay buurta Silaadley loo yaqaano oo halkaas oo afa badan oo ay ka jirtay midkaan dhuxulaysi ka jirtay taasoo aanu muddo ku hawlgalkeeda ku jirnay maantana aanu ku guuleysanay 3 cisho ka bacdi markii aanu hawlgalka aanu galay aanu ku soo qabanay gaariga waaraadka dabadayda taagan oo laga leeyahay taariikhda Puntland Soomaaliya inaanu ku soo qabanay sidaa daraadeed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidankii booliiska nala soo qabtay hawsha nagala hawlgalay haddana wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag hawada u marinaynaa dadka gaadiidka iyo ganacsatada ka imanaysa gobolada bariga iyo koonfurta Soomaaliya ee u soo ganacsi tagaysa gobolka Sanaag inay ka digtoonaadaan inay ka waantoobaanin haddii kale ay la kulmi doonaan cawaaqib adag oo aan ka soo waaqsan karin hawlgaladiina ay socdaan oo baaqu diraynaa ida caalamiga iyo kuwa wadaniga ee gobolka iyo guud ahaan jumhuriyadda Soomaaliya joogaba dhibaatada naga haysata dhinaca deegaanka ka taagan gobolka Sanaag. taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag Gaashaanle Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayare ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay sida ciidankoodu ay mar walba diyaarka ugu yihiin dagaal ka dhana cid kasta oo dhibaato ku haysa deegaanka gobolka Sanaag. wasaaradana hawlgalkan hogaaminaysay oo qarashkeeda iyo shidaaladeeda bixinaysay insha Allah ta'ala waxaanu diyaar u nahay inaanu u soo jeedno inaanu ku dhimano oo ku dhaawacno dagaalanka lagu sameeyo nabad guurka dalka waxa laga soo qabtay baabuurka buurta Silaadley waa meelaha ay ugu dambeeyeen dhirtu waxaan aad ilaahay baa mahad u naqayaa ciidankii ka hawlgalay iyo wasaaradaba iyadoo ay ahayd waqtigii roobabka ugu xumidayeen oo ay ku maqnaayeen muddo 2 habeena kuna soo guuleysteen waxaan kale uga digayaa ganacsatada iyo gaadiidleyda caadaysatada inay dhirta gumaadaan caadaystay inaanu hadeer u soo jeedno oo aragno waanaan ka seexanayn oo ka fadhiisanayn waxaanu la horgeyn doonaa kan iyo wixii kale aanu qabanaba sharciga. ومحمود محمد حسن صراف TV قرنك الصوماليلاند عرقابو.